Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan meel kastoo joogtaan waa idin salaamay. Maanta waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo cashir run ahaantii aad iyo aad muhiim ah. Casharkaasi wuxuu ku saabsan yahay inaad iska baloogarayso kaamiradaada mobilka inaad iska baloogarayso, taasoo wallaahi marmarka qaar anigu saan u arkay dhib dadka ku haysa. Dadna way soo weydiiyeen dadka qaar oo dad badan waxaan arkay dhahniyow kaamiradan hadda matalan tusaale ahaan messengerka oo kale waxay ku soo dareen kaamiro automatic oo hadduu hatta friendiskaaga markaad saa u wadaad fiirinaysa inaad baadho bal risaalooyinka ugu dambeeyay masajyadii ugu dambeeyay hadda fiiri hoos baan u warjiidayaa waxa ku soo baxaya calaamad automatic kaamiraha isfuraysa. Marka qofkii matalan iska boobayo saa u wada ay kaamirada isku furaysaa, waxa laga yaabaa inay sawir si degdeg ah halkan taabato sawir calaamad aad uga gaadhsiiso. Marka dhibaato ayay noqotay mararka qaar kaamiradii. Marka kaamirada marka sidee isugu baloogi kartaa waxa adigoo maxaan ku dhahay isticmaalaya adeeg run ahaantii muhiim ah. Marka hadda fiiri kaamiradeedan aniga hadda way furan tahay mobilka. Hatta mararka qaar waxa laga yaabaa waxyaabo takhsiis oo aad sawiraan aad qaadatay adigu oo takhsiis kuwa inay kugu jiraan ma laga yaabaa kaamirada. Saas darteed inuu qof ama kaa qaado mobilka wax yar ama iyuu kaa qaadin baa si qaldanba mobilka gacantiisa ugu galay uu laga yaabaa takhsiiskaaga inuu arko kaamirooyinka aad sawiraantaada qaadatay hadda sida WhatsApp oo kale iyadana waa sidoo kale. Qof haddii uu matalan WhatsApp-kaaga ka yar qaado ama si doon gacantiisa ugu dhaco hadda matalan ninka saaxiibkay oo kale hadda waa furan tahay hadduu u galo gudaha inuu damco inuu kaamiradii furo si fiican u jeedaa. Marka kaamiradan seen balog u saari karaa bataatan hadda halkan fiiri waxa yar adin ka dhaco halkan aniga sawiraan baa igu jira. Marka hadda adeegan markaad mobilka update garayso ama halka sawiraanta igu jira markaad kaamirada taabato way ku soo baxayaan sidii gallery oo kale. Sawiraanta gallery ku jirna way ku soo baxayaan. Marka maanta waxyaabaha takhsiis ah kugu jira marka bataatan mararka qaar dhib ay keentaa. Marka sidee soo xidhi kartaa waxaad samaynaysaa Play Store ayaa tagaysaa. Play Store ka markaad tagto waxaad la soo degaysaa application ka yar aniga waa ay dejisan yahay block camera camera. Marka hornaanta halkan ka soo baxay application ku waa kan meesha ka muuqda waa kan sawirkiisu meesha ka muuqda markaad ku dhufanaysaa. Hadda aniga waa ay dejisan yahay waa kan goorna install garaystay marka open ayaan leeyahay. Open markaad tiraahdo si automatically wuxuu u xirayaa kaamiradii mobilkaaga ay camera WhatsApp messenger tii caadiga ahayd ee mobil ku soo degtay click ba hal mar siinaysaa. Halkan yar oo qufulku ka muuqdo hadda waan xiray ayaad click siinaysaa. Hadda waa furan tahay marka calaamadda noocaas buluug soo baxdana waa xiran tahay. Hadda waan baxayaa matalan tusaale ahaan waxaan galayaa messengerka ayaan galayaa. Messengerka inta badan waa mid kala kulma dhibaatada. Halkan waxaad idinka muuqata kaamira halkan ka muuqata kaamiradaasi kuma jirin adeegga messengerka markii waagi hore hadda lagu soo kordhiyay. Marka maxaad samaynayaa fiiri asxaabteeda hoos ayaan u wadayaa. Halkan waxaa idinka muuqda inuu qoraal idinka soo baxay inta Ingiriiska garanaysa halkan qoraal ayaa ka soo baxay lagu leeyahay ma awoodid inaad kaamirada furato waan ka xunnahay. Haddaan mar labaad idinku celiyo waa ujeedaan haddaan hoos u sii daayo ma awoodo qofku inuu kaamirada inaad gasho ama adiga ay mushkilad kugu keento sawir si automatic kaaga qaado. Hadda WhatsApp-ka iyo kala haddaan galo halkan WhatsApp-ka halkan kaamirada ku dhufo ujeedaa inuu automatically iska soo celinayo. Haddaba aan gala kaamiradii caadiga ahayd ee mobilkayga kaamiradii caadiga ahayd mobilkayga oo tan ah iyadana aan galo marka si fiican xumanayaa inta Ingiriiska garanaysa inaad fahansantihiin oo aragtaan intaan garanaynin kulay way arkaa inaan la ogolayn hadda inaan galo wax kaamira ah bataatan mobilka dhan kaamira ka xiran tahay. Waxaan ugu muhiimsan oo casharkan maanta soo jeediyay dad badan oo weydiiyay dhibaato ay kala kulmayaan messengerka oo ah kaamira adoo matalan iska wada inay maxay ahayd kaamiro calaamad automatic kugu soo baxayso. Waxa iyadana ka sidoo kale inkastoo aniga hadda ii shaqeynayna adeegga imo-ga isagana waa saas oo kale ay adeeg oo ku jira mobilkaaga kaamiro kuma shaqeynaya waayo wuu xiran yahay. Application-kana waa kan hore idinku sheegay waana hadda midkan ii dejisanay halkan idinka muuqda mobilkayga horaan ku soo install garay. Marka inta ayaan ku soo koobiyo cashirka mahadsantihiin share like subscribe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye.